السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبة قيمة يقدرين تمدن السيدة توسكا نقل الصعدة برتن نقل كميديا اسكوسا نقد ونكسن وحيسا بدن والرجال يا أديكو عافمات غبا إن أد مركل هلكن كسو لابطي صاحب يال وحان دونينا إن هلكن إدي كلو وداقنا حق دق أو مركا أن كهلي مدحوين حسن شيخ محمود أو السفر أمريكا كتغيا ودن كإريتريا maxaad xilligan kala socotaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ujeedka safarkiisa uu ku qotamo waa sidee xaaladda xilligan dhalinyarada ku sugan Eritrea iyo waqtiga la geyn doono magaalada Muqdisho iyo waliba xaaladda guud ee xilligan markaa uu ku qotamo safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo waliba talaabooyinka degdega ah ee xilligan la filan karo marka ugu horeyso muuqaalkan waxaan ka doonayaa ilaa iyo 30,000 oo share gareen ahi halka like-tana aan ka doonayo ilaa iyo 20,000 oo share gareen ahi mar kale waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalkan si share gareyso si ay markaa warkan degdeg ah ee farxadda badan meeshii ugu sareysay uu gaaro waxa la sheegay safarkiisa dhuusamareeb kadib kan garowe kadib in uu maalin iyo bar sida ay wararku tilmaamayaan uu isagu tagi doono waddanka Eritrea waxa uu booqan doonaa xaaladda dhalinyarada xilligan tababarka halkaas ku dhameystay xilligan la keen doono oo ay dawladda Eritrea ka wada hadli doonaan dhaqaale la sheegay in dawladda Eritrea uu ku wareejin doono oo ay dhalinyaradaasi markaa u xanibnaayeen mar kale waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalkan si share gareyso waalidiin badan uu gaaro si xogta halkan markaasi aan idin kula wadaagno ay u noqoto tii ugu cuslayd oo markaa share gareynteedu aad ka qayb qaadataan waxaa la sheegay in guud ahaanba madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagu xilligan ay ka go'an tahay dawladdiisa talaabooyinka ay ku dhaqaaqi karto ay tahay in guud ahaanba dhalinyaradaasi Eritrea ku maqan muddo badan waalidiintooda aan loo jawaabin la keeno halka dhinacyo kala duwanna ay xilligan xaqiijinayaan in safarkaasi kadib maalmo kale oo xiga dhalinyaradaasi ay qaadan doonaan soo daabulidooda balse ujeedka ugu weyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa lagu sheegay in ay tahay sidii xilligan dhinacyada kala duwan ee markaa ku saabsan xilligan Eritrea loogu geyn lahaa dhaqaale ay dhalinyaradaasi ay ku tababartay iyadu ay markaa ku soo rogtay horay dhaqaalahaasi waxa u ballan qaaday dawladda Qatar oo iyadu markii dambe markaasi ka baxday halka dawladdii hore ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la sheegay inay ku guuleysatay ka warqabka dhalinyaradaasi wararkii bunbuuninta ahaa ee markaa in loo isticmaalay dhalinyaradaasi dagaalka ee gobolka Tigreega ka socday iyaduna markaasi waa ay beenowday oo dhalinyaradii waxa si toos ah uga hadlay xaaladooda caafimaad tirada ay markaasi yihiin madaxweynihii hore ee dalka dhawaanna xilka wareejiyay maxamed cabdullaahi farmaajo wararkii ugu dambeeyay waxa ay tilmaamayaan in dhinacyo kala duwan xilligan ay xaqiijiyeen in guud ahaanba arrinkan ay tahay guul iyo waliba farxad u soo hooyatay waalidiinta Soomaaliyeed oo iyagu markaa walwal iyo walbahaar wali uu ku taagan yahay ma jecli hooyo iyo aabe waxaan hubin inaan halkan kula soo fariisto oo aan markaa ku yiraahdo dhalinyaradaasi waa la keenayaa balse xogtii ugu dambeysay waxa ay tilmaamaysaa in dhalinyaradaasi iyagu ay yihiin kuwa markaa xilligan madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarkooda ugu weyn uu tagayo halkaasi ay tahay lacagta dhalinyaradaasi markaa dawladda Eritrea ay kaga baahan tahay ee tababarkooda markaasi ku baxday iyo miisaaniyadooda guud ahaanba halkaasi muddada ay ku sugnaayeen ayaa la sheegay in sidoo kale safarkan uu markaa qayb ka yahay lagu soo wareejin doono dawladda Eritrea madaxweynuhuna uu markaa maadaama lagu wareejiyay qoraal kaliya xilligan uu soo xaqiiqsan doono tirada ay dhalinyaradaasi yihiin isaga oo markaa saraakiil isagu dhinaca la taliyaasha ciidamada u ahna horay u wadan doono safarkaasi balse waxa la sheegay in safarkaasi kadib caleemasaarka uu markaa ku soo aadayo oo 9ka bishan markaa caleemasaarka uu yahay halka caleemasaarka wixii ka dambeeyana safarro uu ku kala tagi doono Kismaayo iyo waliba Jowhar wararkii ugu dambeeyay waa inta markaa naga soo gaartay Villa Soomaaliya gaar ahaan xarunta madaxtooyada markaasi loogu arrimiyo xilligan waxa uu ku sugan yahay dhuusamareeb waxa uu markaasi doonayaa in kulamadiisii ugu weynaa ay kaliya ajandahooda ay noqdaan kuwa markaa looga hadlo arrimaha xasiloonida iyo waliba siyaasadda dalka hase yeeshee muuqaalka noo share gareeya si ay waalidiin badan u gaaraan tan iyo kulan dambe saaxiibayaal nabadgelyo